iyadoo mar kale cudurka coronavirus uu ku soo labakaclay dalka Soomaaliya ayaa dhibaato ba'an wuxuu ku haya guud ahaan dalka sidoo kale magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxay ka mid tahay magaalooyinka uu halista ku yahay cudurka COVID-19 magaalada Jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle labadii bil ee ugu dambeysay waxa ku geeriyooday dad ku dhow 20 ruux dadkaasi intooda badan waxay ku geeriyoodeen xaafadahooda waxaana qaarkood la sheegay inay u geeriyoodeen cudurka COVID-19 maadaama bahda caafimaadka ay sheegeen dadkaasi xanuunada ay u geeriyoodeen inay qayb ka ahayeen calaamadaha lagu yaqaan COVID-19 bulshada reer Jowhar waxaa ka muuqata feejignaan la'aan ku aadan halista cudurka sidoo kale dadka kuma baraarugsana inay la xiriiraan goobaha caafimaadka marka ay dareemaan xanuuno oo qaarkood ay isku arkaan calaamadaha lagu yaqaan cudurka coronavirus halkan aad u jeedaan waa goobta loo diyaariyay in lagu baxnaaniyo ama lagu karantiilo dadka uu soo rito coronavirus sida idin muuqatana sariiraha loogu talagalay dadka in la jiifiyo waa ay marayeen waxaana taasi la sheegay inay sabab tahay in dadka ay ku baraarugsaneen halista cudurka ama ay yimaadaan xarunta loogu talagalay in lagu baxnaaniyo ama lagu karantiilo dadka laga helo cudurka coronavirus agaasimaha xarunta karantiilka magaalada Jowhar Abdullahi Abdurrahman Ibrahim ayaa sheegay bulshada reer Jowhar inay u baahan yihiin wacyigelin ku aadan halista cudurka hadda santarka aan joogno oo Jowhar waa santarka lagu karantiilo COVID-19 ka qabo oo wasaaraddu ay u sameysay meesha marka dadku wacyigelin waa socota oo hadda nafsiga waa arteen baabuurta ay ku xiran tahay mikrofoonada media qaarkood waa ka daaran tahay haddana intaas kuma filno oo wacyigelin aad u badan ay u baahan yihiin dadku welina waa dadku waa marba waxa maqlaysa dad xaafadihii macnaha cudurkii inuu ku haleelay oo markay dhinteen kadib ama san markay dhinteen kadib la soo ogaado oo haddii marka baarno marka dadkii aan ka wareysano barbalemkii qofkaan uu dhintay oo kale oo marka aan leenahay qofkaas waa cudurkaas ayaa saameeyay midda kale waxay tahay dadka qaar ka midna markay aad u darmaan waa qaadaan waxay u qaadaan xamar u qaadaan bulshada waxay baahan yihiin ku wacyigelin guud in macnaha bulshada iyo all maamulka iyo saxafiyiinta iyo kulli inay gacanta isqabsaan laga wada qayb qaato waxa uu weyn wacyigelinta laga wada qayb qaato midda labaadna oo waxay tahay dadka oo cudurka uu haleelay hadduu dhacdo oo ay haleesho oo haleelo in dadkii macnaha lagu wacyigeliyaa in macnaha santarkii la geeyo ama si macnaha si wixii adeeg loo qaban karo oo adeeg ah loo sameeyo wixii marka baaritaanna loogu sameeyo nafsuhu in dadkii lagu wacyigeliyo dhinaca kale qaar ka mid ah bulshada reer Jowhar ayaa sheegay in cabsi xooggan uu ku hayo cudurka coronavirus dadkana ay yihiin kuwa aan ka feejignayn face mask kala dadku waxay ka aaminsan isla face mask naftigiisa inuu yahay coronavirus markii ku arkaan adiga face mask xiran waxay ku leeyihiin adigaaba corona saasanaya adigaaba corona isku keenaya marka dadku ma fahansan inta badan sababta keentay dhimashadii iyo inay badato iyo fahamka dadka may face mask batatan waxay ka aaminsan yihiin face mask naftigiisa cudurka ma xirno ayagoo qufacaayo ayagoo xaalad caafimaad darro in haysa aad u jeedid ay mootada way ku soo raacaan haddii laga hadlo coronavirus waa jiriyaa dadka Soomaaliya laakiin aad u baraarugsana laakiin waa jiriyaa coronavirus dadkina ku baraarugsana waana ilaa hadda wax baraarujin in ma aragno laakiin aad u weyn marwalbo حتى تاكل كعبدخي وقدنا وحول كل شكل واجري أما كل هذا عفسي أساس واجري تعدد قدما كمان ما نكتحدرنا إبراهيم علي نور تي في يونيفرسال جوهر